بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامة يومدا إذا ميل كستاد جوكتان I hope دمانتينا عافماد قبطان نمعي سنتين ميل كستاد جوكتان الله إذن كفحفتي أدنا برواقا سنتين كسو دوادا channel كي قوانو نادية ولا الله يقو عصوبة يقصو بيري جزاك الله خير سو دوادا ومهد سنتين ولا الله يقو هورا سو دوادا I thank each and every one of you إن شاء الله ومهد سنتين kraalika ahaada backgroundkayga dambe beryahan waan guuraya geedi baan hoosoo alaabtoydii oo dhan way xidhxidhan tahay so this is the my new areadayda cusub weeye hadda insha allah ma intaan ka guurayo bacdeen arrimihii ugu dambeeyay magaaladii Minneapolis ka soo baxay wax alxamdulilah ilaahay ummadii weli dadkeeni banaankay joogan weli wax la xidhay male insha allah ilaahay ka indha saaro laakiin waxaa leeyahay magaaladii aad bay u qasan tahay aad jaawigeedu wuxuu yahay qof walba uu baqayaa xusleeyo tolow hadma maalin bariisiro restaurant laga keenay ama dhowr qudrad oo lay keenay waxay ka soo gaadhaan marka magaaladii waxba saa isugu dhex wareegaya wax dambo dad cusubna wali lama soo sheegin maalin baxooga details aba newska lagu soo qoraya maaha laakiin wax kale wax weyn ama wax bahal yani huge ma jirin oo la soo cadeeyay waxaa jirta shalay newska waxaa ku qornaa 28kii bisha waxaa ku qornaa wiilkan la yiraahdo Jamaal Cusmaan oo ah wiil Soomaaliyeed oo ku jira member of the council ka Minneapolis ku jira wiilashii last year-kii wiilashii electionka ku guuleystay kamida wiilkaas wax dhibaato lagu ma haysto alxamdulillah waxa magaciisa waxa uu lahaan jiray isaga iyo laba nin oo kale meel la yiraahdo Stigma Free International Non-Profit Organization meeshaas oo ah meelaha hadda la haysto oo lacagaha cunay marka isagu sida uu isaguna newska ku yiri oo wareysigiisii uu ku sheegay wuxuu yiri last year-kii samarkii markii ahayd ayaan ka baxay markaan soo diyaarinayay electionka wax walibana waa public record wadanka kan hadda non-profit organization leedahay waxaas oo dhan marka magaciisa waxaa la yiri waxa laga remove gareeyay bishii October marka alxamdulillah isaga wax lagu ma haysto ma jirto laakiin newspaper-ka ayuu ku qornaa waxa kale oo ka hadlayo oo laga soo hadal qaatay markii la xidhay lacagta laga joojiyay our feeding number of the organization kan la haysto ayuu isaga iyo maayarku ay meeting-kii ka qayb galeen oo ku doodayeen lacagta loo soo furo isagu waliba uu yiri anigu our feeding future-ka xataa ma aan ogeyn waxaan u doodayay waxay dadka gaajaysan caruuraha iyo youth-ka iyo familiyada maba aan ogeyn xataa our future kan agensiga iyaguna lama shaqayn jirin buu yiri cunto iyo waxa ma aan qaad jirin wiilka markaas saas magaciisa lagu soo qaaday marka company-giisa waxa kaloo jirta oo maayarka oo isagana ku qornayd maayarka Minnesota oo la yiraahdo Jacob Fry baan u maleynayaa oo 6 nin oo nimanka la haysto Soomaaliya ayaa waxay siiyeen donation lacag markii la dooranayay qofkana marka la dooranayo state-kaaga candidate-ka aad rabtid waad support gareyn kartaa oo lacag waad siin kartaa laakiin maadaama isaga hadda nimankii la haysto ayaa loogu soo qoray marka wuxuu yiri aniga nimankana maan ogeyn inay fraud iyo waxa ku jiraan lacagtiina hadda waan celinayaa oo waxaan sugayaa meeshaan ku celin lahaa marka 6 nin oo la magacaabay ayaa ku jira nimanka lacagta siiyay mid kamid magaciisa waxa la yiraahdaa Cabdulqaadir Maxamed wuxuuna uu magacaabay last year-kii public safety wiilkan Cabdulqaadir Maxamed la yiraahdana wuxuu leeyahay Stigma Free International Non-Profit Organization non-profit kan uu lahaan jiray Jamaal Cusmaan wiilkan council memberka ka ahaan hadda sheegay nimankii dambe oo haysta weeyaan marka waxaa la yiri wuxuu qaatay 6.5 million dollars since January 2021kii marka nimanka la haysta buu kamid yahay nimanka donation-ka bixiyay buu kamid yahay wuxuu kaloo kamid yahay wuxuuna yahay ninka public safety uu maayarku u magacaabay marka maayarkii shalayto wuxuu yiri shalayto newska waxa ku qornaa baan leeyahay wuxuu yiri he's no longer public safety iguma shaqeeyo marka dee inuu fayar gareeyay in kale ma garanayo waxa kaloo jirta wiil Soomaaliya oo maayarka u shaqeeyo magaciisa la yiraahdo Cabdi Saalax oo ah senior policy aid of the maayarka ah wiilkaas oo maayarka ah senior aidkiisa wiilkaas walaalkiis waxa uu yahay nimanka la haysto oo ah
safari restaurant iyo even center meesha la yirahdo niman kale kamid ah marka de su-aashaas weydiinta le waxay tahay meeshii scandal baa soo galay maayarka nimankan soomaalida tuugada ah oo qaybna leeyahay lacag bay siiyeen mid public safety uu magacaabay wiilka kan xumaana lagama soo sheegin walaalkiisunbaa dee tuugada ku jirta wiilkan cabdi saalax la yirahdo senior policy aidka ah oo maayarka u shaqeeya isaga wax dhibaato hadda laguma magacaabin laakiin walaalkiisa nimanka tuugada senior ku jira lagu haysto kamid oo laleeyahay dee wuu yahay marka maayarka laftigiisii I don't know meesha miyuu ku jiraa ma fiicna assumption in la sameeyo wax dhibaato hadda laguma haysto khalada ma uu sameyn laakiin nimankana jirta oo dee nimankan waxba dhici karta xataa inay iska dhaadhicinayeen oo maayarka ma taageerayeen ama lacag siinayeen oo maayarku has nothing to do uu yahay waxaa kaloo shalay newska ku qornayd in waxaa jirta 2020gii markii kan dib ugu yaro noqdo markii Minnesota Department of Education ay lacagta ka joojisay companygan non-profit-kan organization-ka la haysto la yidhaahdo Feeding Our Future markay lacagta ka joojiyeen way loo suudgareeyeen marka shalayto waxna isku qornaa loo suudka ayay shalay daroob gareeyeen wax qornad way daroob gareeyeen maadaama hadda iyaga investigation ka weyn uu ku socdo marka Minnesota Education sidan videogayga horena kusoo hadal qaaday last yearkii way ka shakiday sababta ay uga shakidayna maxay tahay marka sababtu waxay tahay horta marka ugu horeysa Feeding Our Future-ka non-profit-ka kan waxaa la asaasay 2016kii laakiin 2016kii iyo 2017kii lacagtii dowladdu ay siisay ma ku qorna uma garan karno ha yeeshee 2018kii waxaa ku qoran in la beegareeyey 307,000 iyo 7,258 2019kiina waxaa la beegareeyey $3,487,168 2020giina $42 million $681,790 2021kiina $197 million $932,695 so marka that's the faraqa weyn oo u dhaxeeya fiiri 3 million 42 million 197 million dollar so wixii double xataa day 10 jeer bay badatay marka qolada tan waxay yiraahdeen what's going on Minnesota Education department-guna wuxuu oversee ku sameeyaa ama eegaa uu tahay in uu eego lacagta program federal aid programku ay bixiso marka wuxuu eegayaa waxa lacagtu how much qolada usoo diranaya marka oversee bay ku sameeyaan marka Minnesota markay yaabtay lacagtii bay xanibtay marka maxkamadu wata la isla galay wiilkan Jamaala iyo lawyerka iyo istafno wiilkan Jamaala iyo Feeding Our Future ay doodeen iyo xataa maayarku oo meetingka tageen markaas ayay naagta Amy la yiraahdo gabadha Amy la yiraahdo oo cadaanka oo the founder of the company-ga non-profit organization-ka markaas ayay maxkamadda tagtay marka maxkamadda qaybta Ramsey ee Minnesota waxay u ogolaadeen waxay judge-kii wuxuu siiyey in lacagta loo ogolaado marka ayaa lacagtii loo sii daayay markii lacagta loo sii daayay Minnesota lacagtii markay aragtay education department-guna ay arkeen lacagtan inay badan tahay ayna shakiyeen waxay markaa u direen FBI inay investigation ku sameyso because wax lala yaabo way tahay lacagta dhan ay qaateen $244 milyan iyo $408 weeyaan marka they is completely lacag aad u badan weeyaan $197 million iyo $303 million iyo markaas waxa dhacday loo suudka markaas ayay suud gareeyeen marka waxay fayl galeeyeen loo suud ay leeyihiin waxay discrimination ay lacagta noogu diideen non-profit organization-ka la shaqeynaysa dadka minority-ga ee Minnesota marka shalayto loo suudka waa kuwan daroob gareeyay markay arkeen iyaga dhibaato haysato marka su-aashaas weydiin kale waxay tahay dadka kan lacagaha kan sida u badan sidee bay loo ogaan waayay waxaa jirta lacagaha faraha badan waxay sameeyeen different names hadda for example oo kale qolada tan ee Safari Restaurant not only Safari Restaurant lena different magacyo badan oo company yaryar ayay samaysteen
oo qolo waliba ay meel magac yar u yeeleen lacagtii bay transfer ku sameyn shell company bay samaysteen meelo kaloo vendors bay magacyo u sameeyeen oo leh marka lacagtii waxay ku transfer gareynayeen kanoo kale $1 million bay u direen kan $2 million bay u direen wixii bay isku bedbedelayeen lacagtiina hadhowta akoonadoodii bay kusoo noqonaysay marka waxyaabaha kan dhibaatada keenay hadday hal akoon lahaayeen qoyar socod lahaayeen lacagta dadka siin lahaayeen lacagta baalkayn lahaayeen waxbay noqon lahayd laakiin the problem kuma u ahayn sidaas waxay ahayd inay xoolihii isku bedelayeen waxaa kaloo jirtay inaan aanu faranisnahay oo very xoog ogaala inuu shalayto ii sheegay arrin aan aada uga naxay oo ah in dadkan lasoo qortay oo ku jira dadkan la haysto hadda nin ka mida ay wiilkan is yaqaanaan uu yiri waa nin miskiina oo caruurtiisa u shaqaysta oo aan waxba ka ogeyn organizationka kan ha yeeshee dad family iyo friends waxay yihiin ma garanayo whatever ay yihiinba ayaa magaciisa qaatay oo ku qortay oo yiri magacaagaan use gareynan adigana intaasoo lacag baanu ku siinaynaa ninkii uu ka ogolaaday ma uu ogeyn lacagta ay qaadeen iyaguna millions dollar bay qaadanayeen isagana lacag baa la siinaya I don't know how much ay tahay dee markii magaciisii ay liiskii ku qornaa oo intaasoo milyan loo haysa ninkii wuu muraaro dilaacay wuxuu yiri wiilkii hadda lawyer baa loo qabtay marka dee waxay noqonaysaa inuu qolyaha kan lacagtii qaato oo meesha ku jiray laakiin magaciisa isticmaalayay inay maxkamad la galaan laakiin walaalay waxaad ogaataa magacaaga qof inaanad siinin inay khalad tahay sababtoo ah mistake kale khalad kasta oo dhaca adiga lagu qaadanayo qof magacaaga markaad siisay hooyadaa dhashay allaha ka dhigeena ma ogid mistake iyo wuxuu lacag qaato aday kugu soo noqonaysaa marka inaanu is ogo inaynu is dhiirgelino oo is ilaalino weeyaan Minnesota kale waxaan ku arkay meelo dad badan oo qof walaalkiisa ayaa ama qof family memberkiisa ayaa caruurihii magacaagiiba ku qoran ma haysid ma ogid waxba kama ogid magaaladaad ku jirta qofkiiba ama caruurtiisii haysta ama iskuuleeba loo diray ama galabtii isagaa la jooga lacagtii soo dhacdayna waa adigu magacaagii ku qoranta waana la kala qaybsanayaa qofkaas haddii birto dhibaato ku timaado adoo magaalada jiro cunuga yaro ama artistiga ama tiriday care baan ku hayaa haddii khalad ku dhaco adiga ayaa lagu qabsanaya because adiga magacaaga ku qoran yahay haddii lagu ogaado oo lagu dabagalo mise adiguna magaaladaad ka sheekanaysa ama shaqo kalaad ku maqantay caruurtiina ma hayst dadka kan muddo dheer bay ku dabagelayaan soo walaalayaalow in la islaaliyo waa muhiim qof kastana ha ahaatay inaanad sharcigaaga qof siin male even package haddii lagu soo diro ama qof uu ku weydiisto inuu package gurigaaga kusoo diro magacaaga ku qorta ha ka yeelin sababtoo ma ogid packageka waxa ku jira haddii qof adoo dhoofayo ku yirahdo package-kan iga qaad hortiisa ku fur fiir waxa ku jira sababtoo yirona waxa ku jira dadkii hadda qof la aamini karaya ma jirto waxa jirta maamo aan garanayay few years ka hore in wiilay eedo u tahay uu ku yiri eedo package baa gurigeena igu imanaya waa magaaladiina anu soo socda package-ka ii qaad magacaaga aan ku soo qortay maamadii maamo miskiinada weeyaan waxba kala aqoon waayahay bay tiri package-kii markii uu yimi maamadii waa la soo waxaa la yiri kaale oo noo saxiix guri bildina bay deganeed maamadii hoos bay usoo daatay UPS-kii hoos bay usoo degtay package-ka heblaaya hebl martay yes package-kii baa loo dhiibay way saxiixday jeeb baaba lagu dhuftay ninka package-ka wado iska dhigay UPS-ka waaba federal agent kuwii kalena banaanka ku sugaya markiiba habartii waa la jeebeeyey habartii wadska weynaan waxaan kontrabaan inay yihiin ma ogtay kii xoolaha lahaa oo sugayay baarkinka ku jira wuu arkay markuu arkay islaantii wuxuu islahaa dhowta marka xooluhu dhamaado inay nimankan tagaan guriga galo package-kaaga qaado jaad ama qaad waxaa la yirahdaa ku jiray markii uu arkay in wixii habartii la kaxaystay dee wuu caro statekiisiibu ku noqday marka walaalayaalow ha lays ilaaliyo you don't know dadka kan qofna hadda qof la aamini karaya ma jirto you cannot trust anybody haddaad dhoofaysid ha u ogolaan hortiisa ku fur qof hadduu waxa weeyaan you don't know waxa kan ku jirta male hadhowtana waxaa khaladkii gelaya waa adiga wixii la qabsanaya waa la xidhaya male maamada miskiinada maxkamad bay gashay lawyer aanay awoodin baa loo qabtay oo reerahoodii oo dhan isugu tageen maxkamadii yaa ka yeelaya anigu ma lihi ila iyadii baa basayn garaysay magaceedii baa ku qoran waxaa lihi haddaadan lahayn way baad u sayn garaysay waddankana waad aragteen dadka kani waxyaabahaas ma aamini karayaan qofba waxa aanu lahayn qorayo aaminaya waad aragto wadamada tan meel balaayo ka dhacday haddii la arko qof taabanaya meel qof gadaal buu istaagaya wuxuu leeyahay ma doonayo inaan trouble galo marka waxa weeye walaalayaal inaynu isilaalino weeyaan marka taasina waa taa marka magaaladii Minneapolis aad ayuu xasaasigeedu u badan yahay waa la cabsanayaa
de waxaa la yidhi ninkii deen cule beri ka bibiriso may ahayn qofka hadduu joogsan waayo meel baas buu ku dhacaa marka intii wuxuntay iyo intii kaleba dee dhibaata wada haysata waa la wada cabsanayaa laakiin hadda wax weyn oo aan cabsi ahayn iyo dadkii aan waddanka ka bixi karaya jirin waxaa dadkaa ku jira oo murigo aada u weyn ah waxaa lai sheegayay nin iyo naag isqaba dad badan oo isqaba xataa inay ku jiraan qaybtood nin iyo naag isqabo labadiiba la haysto labadiiba meesha ku jiraan hooyooyin aada u fara badan oo intooda badana caruuro leeyihiin oo intooda badan aqoon lahayn oo waxba kala ogeyn dad badan oo iyagu wax garanayo de musuq maasiq iyo balaayada u dhashay marka dadkii waa isku dhex jir dumar badan baa ku jira aada u badan sida la sheegaya oo aanan xataa la yaab leh rag badan baa ku jira dad badan baa xataa different meelo badan loo haysta oo one company sidan kuwan safari oo kale iyo event iyo dhowrka qayb baa waxay leeyihiin dhowr different meelood marka dee dadkeennii anigu waxyaabaan ka yaabanay waxa weeyaan waxaan ka yaabanay the one things aan anigu ka yaabanay qofku tuugnimobu tuugahaba la iska noqdee laakiin caqli darrada intaa leeg tuuga soo cadaysatayba weeyaan oon cabsanaynba waddankeennii baynu corruption kusoo baabi'inay waxaasoo dhan iyo balaayo kusoo baabi'inay haddana waddamadii kaleynu la imanayna oo ka muruga badnaa ilaahay hanaga asabto subxaan allah wamacamaa yashrikuun wax laga naxo way tahay dad waaweyn oo tuuganimo usoo xiirtay oo haddana wiilkan shalay wuxuu iiga sheekeynay xalito wuxuu iiga sheekeynayay masaajidada markii la yidhahdo wuxuu yidhi anagoo masaajidka fadhina marka la yidhahdo minnesota arko every friday walba masaajidada waxaa la yidhahdaa donation wuxuu yidhi $100 $50,000 $100,000 wuxuu yidhi nimankaas lacagta bixinaya you cannot imagine meel baa la oranaya waa la dhisaya waa la bixinaya waa lacagtii baa lagu kifaaxayaa xajkii waa laga wada aaday I don't know xajka ilaa in dee aqbalada ilaahay baa ku sigtay kolba xoolo la soo xaday meel lagu xajiyi karaa marka calaa kulli xaal sheekadu halkaasi maraysa insha allah bidmillaahi karim wixii dambe cusub waa idinla soo socodsiinaya I'm really interested situationku meeshuu ku dambeeyay because wax maskaxdayda la yaab la noqotay bay dad intaasoo lacaga cuna oo haddana soo indha adag marka insha allah bidmillaahi karim still gonna read the newska wixii soo cusboonaada waa fiirinaya insha allah bidmillaahi karim waa idinla soo socodsiinaya fadlan subscribe like saar gambaleelka taabos insha allah bidmillaahi karim hadduu walaalahayga kalena ay usii gaadho video kastaan soo geliyana aad ula socotaan insha allah bidmillaahi karim again thank you so much dhammaantiinba insha allah bidmillaahi karim khayr ayaa idiin rajaynaya until next time assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu